أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. xadiiskii maanta wuxuu ku saabsan yahay sida la soconno bisha December waa gabagabo xalaqooyin aan ka sameynay Christmaska iyo shariica islaamka maxay ka qabtaa arrimahay ku soo xiriiray. waxaan rabaa inaan ka hadlo mas'alo kale oo iyadana muhiim ah oo ah dadka sanadka cusub u ixtifaala. xaqiiqatan sanadka cusub ixtifaalkiisa waa ka duwan yahay sanadaha kale ama ixtifaalaadka kale la sameeyo. waxa weeye dadka muslimiinta aad iyo aad arrintaas ay ugu sibqatay ayagoo aan fahamsanayn sanadka cusub ee gaalada oo January ama Yanaayar ama Janaayo ciid bay u tahay. walidaalika iskuulaadku waa la fasaxayaa, qamra la cabayaa, ciid ay u tahay. marka waa sidaas daraaddeed dadku waxay u maleeyaan sanad cusub bisha kaliya inay tahay. masalada sanad cusub maaha. nacam, dhaqan ahaan qofka inuu sanadka uu xisaabo waxay tahay islaamka in sanadka islaamka lagu xisaabtamo. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nu siiyey anaga ashhur oo ah qamariya, ayaga bisha ay qoraxday ku xisaabaan. mar kastana islaamka wuxuu ka digayaa in la raaco sunnadooda. atashabuh bilkufaar diintiina waa ka degtay, khaasatan dadkeenan Yurub jooga, heer galbeedka jooga. caruurteenna aad bi aad arrintaas ay u sahalsadaan. Christmaska inta badan dadku ay ka baqaan maxaa yeelay waa arrin diinteeda waa kaleer, waa caddahay. laakiin tan ayaa dadka u dhuumata kaliya. bal waxaa arkaysaa dowladda islaamka madaxda sanadka cusub waxay ku leeyihiin caawada muusiga jirto, sanadka cusub baa la soo dhaweynaya. ma fahmana waxa la soo dhaweynaya iyo waxa la soo gootinaya. qofka muslimka ah hadduu sanad u kordho waxay tahay inuu ilaahay ku shukriya. maxaa yeelay sanadka u kordho cumrigiisa soo naaqosma. hadduu 60 sano inuu dhinto ay qoran tahay ilaahay agtiisa ka qoran tahay 60 sano inuu ku dhinto, markuu 40 uu joogo 41 dil dhaha waxa uu dhanaanayso 19 maalmood oo dhanaa 19 uu dhanaanayso sano. hadduu 42 gaar 8 maalmood uu dhanaanayso markaas sano ugu dambeyn cumrigiisa soo gaabto waay ilaa waqtiga ilaahay uu dhimanayo. marka in gaalada la raacay la diiday ma banaano oo tashabbuh bil kubar waan sheegnay. oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu naga dhigay dad muslimiin ah ka soocan dadka kale. ma aha in asla weynah, laakiin alxamdulillah alladhi hadana ila alislam. ilaahayga islaamku nagu hanuuniyey ayaa mahadle. annaga waxaan keensana maaha, laakiin shukrigeedana laga rabaa. walidaalika nabiga calayhi salaam la tatbacunna sunana man qablakum wuxuu noogu sheekay xadiis inay gaalada la raacayo. gaalada in raacna dhibay keenaysa qofka muslimka ah inuu markasta waxa la rabaa uu bari ka ahaado diintiisa uu ku faano. nacam, mucaamalaad nala baneeyaa jir gaalada. shariicada noo xadada calaaqada naga dhaxayso. cadawtanimo weyn, cadawtanimo naga dhaxayso waa cadawtanimo iimaanka, laakiin tan insaanka maaha. oo macnaha waxa weeye waxaan diidanahay xubbiga loo jeclaanayo diin ahaan in loo jeclaayo waa la diiday. xataa hadda waxaan leenahay xafladooda ayaa laga qayb galin oo diinta ah diidanahay. laakiin nin asla shaqaysiin oo xaflad dhiganayo gaal ah oo wiilkiisa baasay ama nin shaqo helay oo yiri maanta xaflada waxaan u dhiganayaa farxa liquduumi ghaa'ib nin maqana yimid ama waxaan u dhiganayaa ila farxada waxaan u dhiganayaa maanta shaqo fiican aan helay. laa baas, dhib ma laha qofka inaa ugu tahniyadiyey sida mabruuq ah ku tiraa shaqada heshay, gaal ha ahaado muslim ahaado. laakiin wixii diin ku saabsan waa la iska ilaaliyo. walidaalika ra'is sanada diin salka ku haysaa. way jiraan culamo dhahay caadi waa, laakiin xataa caadaadkooda taqaaliidkooda in looga daydo ma wanaagsan. maxaa yeelay waxay imaanayso maxaba waxa dhalanayso qofka inuu ka tanaazulo mabda'iisa oo islaamka ah. ilaahay subxaanahu wa ta'aala laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir yuwaaduuna man xadda Allah wa rasuuluhu. min baab mawdada ay gali kartaa inaad tiraahid xafladaha kristiyaanka waa dhiganayna, xafladaha waa dhiganayna, inaad markasta ka socnaatid oo qofka muslimka u ahaado uu ku faano islaamnimadiisa baraawad uu ku ahaado uu yiraaho waman axsana qawlan mimman daca ila Allah wa camala saalihan wa qaala innanii min almuslimiin. waxaana diinteeda waxay ku amartay inaad raacdid. cadawtanimo ma jirto qofka. waxaan nidhi markii loo tacsiinaya waa loo tacsiinaya, laakiin dhahay allah u naxariis lama dhahayo. janaasadooda lagama qayb galayo, looma raacayo, tashiicoodii qabriga lama istaagayo, qabriga ma raacayo. laakiin hadduu meyd oo kristaan oo nin gaal la soo marsay waa loo istaagaya. nabiga calayhi salatu wasalam fiiri markii uu yaalo yahuud waa markii la yiri wuxuu yiri alaysa nafsa ma ahunu. diinteena mucaamaladeeda wax kasta kaleeray ka dhigtay, laakiin dadka ayagaa rabaa hawadooda inay raacaan. marka iska ilaali
inaad tidhaahid sanadka cusubaa loo dabaaldegaa iyo maanta dowladda meesha iskugu tagtay iyo xafladaa la qabanaa sanadka cusubaa soo dhaweyneynaa iska ilaali arrimahaas oo kale wax banaan ma aha ko waxay ku banaaneen waa tashabuh iyo taqliid waay islaamkana ma ogolo inuu taqliidiyo nasaarada in la taqliidiyo ma la sheegay laba wuxuu ku yahay waa takhiir lisawaad kufaar gaaladaa badanaysaa ra'yigooda qaadata iyagaa la badina taasna lama ogola ayadana kan kalena waxay tahay waxaa ka imaan karta waxaan yidhi in raaca waxaa keenaysa marka dambe inay diintaada aa ka sambaraxda maxaa yeelay mar kasta oo aad dhaqankooda a qaadato oo u dhawaatid waxay noqonaysaa inaad marka diintaada si ah tartiib ugu baxdid marka inaad arrimahaas oo kale ayaan ka digaynaa oo ah qofka muslimka inuu ku baa walidaalika muslimkan waxaan yidhi mar kasta tabciid inuu iska dhaafo sanadka hijrida annaga ma dabaaldegno lakin dadka waxaa looga sheekeeya hijrada looga sheekeynaya waxaa looga sheekeynayaa taariikhda dhacda islaamka say ahayd nabiga alayh salatu salam diintan soo gudbiyey lakin ayaga markaa fiiris magac yanaayar january maxaa loogu bixiyay taarikhda arasid arrin diin arrimahooda diin waay marka inaad diintaada isku dhex darid maaha nabiga alayh salatu salam markuu madiina yimid wuxuu yidhi ilahay wuxuu noogu bedelay laba ciid noo siibaan ciid aladxa iyo ciid duxa fitra ayuu noo sameeyey wixii curfi ah oo tahaani ah dhib ma laha oo dadka ay samaystaan laakiin masalooyinka diinta markasta qofka muslimka inuu ka foganaado sidoo kale waxaad tusaysaa muslimka inuu daciif yahay haddaa dhehaysa nisaamka cusub dabaaldega daciifnimada muslimiinta laga yaabaa qofka inuu dhaqado balse waxaa laga yaabaa sanadka cusub dadka inay u arkaan xaaraan inay sameeyaanba maxaa yeelay xaflada la qabanaya wiilashii gabdhihii isdhexgalayaan oo la dhahay maanta xafladaasaa samaysanayna ay diin qof muslimata adiga hogaanka lagu haya ilahay isku dhiibtay marka waa diintaada waxay ku faraysa inaad tiri wax kaa dhibaysa ma laha adigoo tashadud aa samaynin haddana waxay kaa dhimaysa dilugur diintaada taa ma ogolo waa ina qofka muslimka ah oo dhihin ma aha waa la samaysan karaa iyo maanta muusiga la tumana iyo caawa sanadka cusub way xalay aan soo jeeday 12 qoraxa waxaa la shidaa anaga maalinteena sanadkeena cusub qoraxda markay dhacdo bilaabana laakiin 6 saac habeenimo lama sugaa shariica islaamka bilaha islaamka اليوم waxaa la yidhaha min quruub الshams bacda quruub الshams habeenaa bilawday marka maalintaas qoraxda ay soo baxda subaxdii haddana maalin cusub aa bilaabatay saasana laakiin 6 saacad bilaabanaysa iyo kala go iyo keega la jara iyo kana la jara waa tashabuh bil kufaar waa gaalo lagu dadaysanayo way iska ilaaliya bal qaarkood waxaa laga yaabaa in dowladaha muslimka qaarkood ay iska baneysteen ba arrintan ay ka dhigeen ba arrin ah dowladda ka qayb galayso oo waxa ka qayb galay ummadda inay ka qayb galayso ay qofka muslimka diin ah qofku waxaa la rabaa inuu yidhaaho naftaydu waxaa u milkiyay ilaahi subxaana wa tacaala qul ina salaatii wanuskii waxyaaya wamaatii lilahi rabi alcaalamiin waxaa leedahay noloshayda iyo dhimashada ilaha iskala leedahay iyo waxaan qowracayo qofka muslimka waxaa waa ilahi isku dhiibay islaam wey laakiin haddii wax kale lagu keeno meesha oo lagu yidhaha kanaa la dhiganaya ee xafladana laga soo qayb galaya gaalada lagu caya sanadka cusub aniga hoteelkaasaa ku dhigna idinka intay ku dhiganaysiin oo dadka fusaaqda ahaa oo fanaaniinta ahaa naga awood bataan wana yidhaha kaala sanada loo dabaaldega oo telefishinada sanadka cusub fasqiga ka soconaya ayaabaysid warna ilaahay aan ka baqno taas arrintaas waa waxa oo ilaahay subxaana wa tacaala unoo diiday walidaalika diintan raacitaankeeda qofka raaco ilaahay subxana wa tacaala waa noogu degay waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu ilahi subxana wa tacaala wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin war maxaa jeceshahay waxaan diinteena ahayn inaa ku dhaqantida wuxuu yihi ninka diinteena diin kale ka samaysto ilahi subxana wa tacaala kuwaas wuxuu yihi ilahay maka aqbalayo hadday ilahay ugu dhowaadaan wax cibaado ah haddana wuxuu yihi waa khaasiriin waa qiyaamaha waaba khasaareen kuwaas ayuu noo sheegay ilahi subxana wa tacala ilah nagama dhigo kuwa khasaar allah naga dhigo waxyaabaha la diidaya waxaa kamid a sidoo kale in qofka muslimka ah oo xafladaha samaysanayo inuu ilaabo bilihii muslimka hadda ilmaheen dhan ma yaqaanaan bilaha muslimka maxaa dhaca sanadka cusub yaqaanaan january waa yaqaanaan february waa yaqaanaan laakiin dulxija iyo dulqacda iyo muxaram iyo jamaat alawal jamaat athani hadda daa tiraada bisha lagu jiro muslimka maxay tahay ma sheegi karo maxaa dhumiyey waxaas dhumiyey xafladahana dhumiyeen oo la samaynayo xafladahan waxa waaye tamsiya kugu samaynayaan qalb basiiradii kaa xirayaan waxay kaa xirayaan diintaada iyo dhowaanteeda marka waxaan leeyahay war islaamkeena ayaa noo waadixiyey sidii aan dadka aan naga diimaha ahayn aan loo dhaqmayno waxaana la ogol yahay iyo waxaana la ogoleen diintiina noo waadixisay laakiin waxaan oo ah taqliid acmaada ah oo anaga aan keensanin oo diintana berina qalbiga wuxuu nabigu alayhi salatu wasalaam تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا saas uu leeyahay qalbiga waxa weeye mar kasta kan maanta xafladda ka qayb gal biri wax kale ka qayb gal wax kale marka waxaad arkaysaa adigoo kaniisada dhex taagan nasul salaam qaasatan dadkeena Yurub jooga aad ugu digaya inay iska ilaaliyaan xafladahaas oo kale inay ay sameeyaan waxay dhimataa diiwaalaha kuwa suhunuuda ama siiqa waxbay dhigtaan waxbay qarxiyaan aad waxbaa qarxinaysaa marka
walidalika dad abaaruud soo gadana sanadka cusub muslimiin abaaruud shidaay wax yeelay ma haddii uu ku jiro meesha sixir iyo wax kale ku jiran diinta waaba kasi owley ka tahay in la dhahdo sanadkan haddaad dab shidanin sanadka abaara nagu dhacayso haddaad tiraahid waa kasi daran tahay oo qofka diintiisa ayaa laga yaabaa iimaanka inuu ka baxaba marka naftiin waxaan iga digayaa war xafladahan oo sanadka cusub aad dhiganaysaan inay diintan shareecada islaamka ku banaaneen aad ogaataan oo aad caruurta laga ilaaliyo oo dumarka laga ilaaliyo oo ilaahi subxana wa tacaala mar kasta markuu adiga da ku korodho ayaa ilahay ku weydinaya awalam nucamirikum adaa beri lagu warsana sanad ixtifaasho ma waxa u leey soo da ma gaarin adiga ha daadaa gaartay waxa ilaahay u laabo wax sadaqaysto ilaahay u dhawow taas waa tan dhabta ah qofka uu liibaanaya adduunya iyo aakhiro ilahay waxaa naga dhigay kuwa xaqa arka mar kasta subxaanaka allah wabixamdi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu